magacaygu waa Fartuun Maxamed Axmed kula dhalatay magaalada Muqdisho gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Hilwa. waxaan ku fikiray markaan soo hana qaaday in aan ku fiicanahay sportiska because waaga yaraa ayaan xiisayn jiray oo aan ciyaari jiray laakiin waagaas kubadda cagta ciyaari jiray dan waxa ii soo baxday inaan sportiska ku fiicanahay dhaqdhaqaaqiisa meesheedan ka bilaabay degmooyinka magaalada Muqdisho degmooyinka kamid aan tagi jiray kubadda basketka waan ciyaarayay handballka mar allaala markii waxaas oo degmada shayga ka socdaan ciyaarayay marka professionalkaygu wuxuu noqday oo aan ugu fiicnaaday kubadda gacanta ee loo yaqaan handballka. horyaalkii ugu horeeyay waxaan ciyaaray 2015 bishii November waxaan u ciyaaray naadi lagu magacaabo Nationalka oo iska leeyihiin naadiga heerka koowaad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed Heegan qaybtooda gabdhaha. aniga waxaan ku guuleystay 2 bilood oo horyaalka gabdhaha ah oo kubadda gacanta labadaas biloodna ma aanan kaydin laakiin intaan dabaaldega koobka aan ku jirnay ayaan arkay taageero kamid ah taageerayaasha kooxda oo aad noola dabaaldegaya kadibna fanaanadu iga codsaday ima suurtagelin fanaanada inaan siiyo because qof dumar aan ahay haddana muslim garoon ku jiray biladeydii siiyay qoorta u geliyay bilada saddexaad oo ii xigtayna waxay ahayd kubadda cagta markaas waxaan ciyaareynay munaasabad looga hadlayay gudniinka fircooniga oo aan ku guuleysanay iyada bis aan haya hadda labada kale dad faanis ah siiyay. caqabad sideeda waxay ka bilaabanay guriga way jirtaa caqabado badan oo dhanka familka ah gabar tahay waxba barataa gabar muslimna tahay maxaa ciyaaray banooni iska dhaaf gabar banooni ciyaarto waa sida nin camal hadhow ay ku guursanaya way jiraa caqabadahaas laakiin dhagna uma dhigin because waxaan fiiriyay hobbigayga iyo meesha ay rabto niyadeeda dhanka bulshadan way jirtaa waa lagu leeyahay marka wadada marayso kale gabdhaha qaar ku isteel matid ku socod matid waxa lagu leeyahay sports ma tahay ma iska dhaftay gabaraa tahay niyad way leeyihiin laakiin uma sii dhigdhigo tan kaliya ugu murugta badan waxa waay dhanka security-ga amniga wadankeenu ma wadan ka diyaarsan ama horumarsan dhanka amniga ma helayaan gabdhaha garoomo u gaar ah oo xur u yihiin ayay ku training gareeyaan qalaba u sii dheer ma jira qalab hadduu ahaan lahaa kubadihii hadduu ahaan lahaa dharkii kabihii ma haystaan basas ciyaartooyda guryahooda ka qaadaya haddii ayaga nafsad ahaantooda isku soo dabar lahayn ay soo bixi lahaayeen qaar baan awoodin sportiga qaar baa lugeeyo oo meesha lagu tago maalmo dabadeed way ka caajisayaan oo ma haystaan dhiirigelin ma haystaan. insha Allah waxaan rajaynayaa sportiska gabdhaha Soomaaliya inuu sare u kaco u socdo shakhsi ahaanteedana waxaan ka rajaynayaa insha Allah guuleygana inta ka sii wado oo naadigayga aan la sii halgamo muhiimadeedu ugu sareysan sportiska inaan ka gaar ay tahay in aan xulka qaranka Soomaaliya mar fanaanadiisa xirto aan kala soo qayb qaato tartamaha uu matalayo.